wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka saaxil iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka saaxil ayaa maalintii labaad wacyigelin ballaaran oo ku saabsan ka hortagga xanuunka caabuqa coronavirus ka sameeyay deegaanada xeebta galbeed ee gobolka saaxil waxaanay bulshada ku dhiirigeliyeen kor u qaadidda nadaafadda sidoo kalena waxay uga digayeen goobaha bulshada ku kulantay inay isugu yimaadaan isduwaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta gobolka saaxil cabdisalaan xariir sheekh cismaan ayaa halkaasi hadallo dardaaran uga soo jeediyay bulshada deegaanadaasi ku dhaqan xeebta galbeed gobolka saaxil hadaanu halkan nimi hadaa iskaga weydiinayseen waxaan weeye ama u dhigtaagaysan dhawaaqayaga annaku waxaanu nahay group ama koox isugu jirta wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaanu ka soconaa xukuumadii iyo gobolkii saaxil ayaana soo diray waxa la dadkeeni adduunyada waxa ka dhacay xanuun aafa ah oo dad qaada barigii hore dadku waxay oran jireen waxa soo baxay bahal dad qaada muxuu ahaa dalibax buu ahaan jiray ama orgome iyo wax lamid ah baa adduunyada ka soo baxay sababta dadku ku dhigtaag jiray waxa weeye dadka wax ka qaalisan maan jirin hadduu bilaadan cunayana halistiisu leey marka wala dhigtaag jiray maanta waxaanu ka dhigtaagnaa waxa kumanaan bilaaad meelayo inaga ina lamid ah ee noloshoodii garaaftay inakana weynoo iman kara ilaahay inoo ma keeno laakiin ku tala gala anagu waxaan u soconaa maanta inta la bari maayo nadaafad dadkeenu diiniyan iyo dhaqankeena suuban labadaba nadaafad ayaynu lahayn دكتور سهودان إسماعيل علمي وكمد هالوضينة وزارة هرمرينتا عافماد كي قبل الساحل أيا شرحات كبحثي حنوك كورونا فيروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيم كان مانتا أيدين يميدين كوسعنا وزارة عافماد كا وزارة وعيقلنتي دقنكا قبل الساحل. كل واحد دين كوسعنا أنتي بدنايد عبد السلام بايدين شجوا وزارة ورفافين كسعودي أنا كعافماد ها وحنوس عني وعيقلنتا عذر كان imika adduunka faraha baan ku haya inaanu idinka wacyigelino qofkii oo ku dhaco calaamadihii aad ku garan karteen iyo talaabadii aad kaga gaashaamanaysiin aad kaga hortagaseen waxa weeyaan qofka horta cudurkan ilaahay nagu ma radiyay laakiin waa hadana wax cudurrada faafa ku jira lagana yaaba inuu ina soo gaari karo marka waxa qofkii aad dadku aragtaan qof qufacaya ama qof hindisaya ama qof ku hadu qufacayeesho haduu hindiso madaxu haduu xanuuno daal haduu dareemo haduu dhidido hadii uu neef qabato sameeyo intaba waxa la uga shakisan yahay inuu yahay calaamadaha cudurka coronavirus ka la yiraahdo inta badan marka waxaan kaga hortagi karnaa nadaafadda iyadoo nadaafadii kor loo qaado bulshada deegaanadaasi ku dhaqan ayaa soo dhaweeyay baaqa uga yimid madaxda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland nadaafadda diintu way amaantay nadaafaddu nisfidii baa leeyahay diintu barkeed weeye nadaafaddu haddii aad keenteena waa la idinku mahadnaqaynaa reer saaxil hadday yidhaaheen shicibkooda wax wanaagsan aan u soo sheegno cudurrada waxay jiraan aan uga digno warnaasilo waa ku mahadsanti waxa weeye waqtigu cudurka waa la sheegayaa dhagaana waan ku haynaa nadaafadana waan ogolay inaanu ka shaqaysano hag iyo jeeraalaba waana noo timaadeen waana noo sheegteen idinkuna waana mahadsantihiin hase yeeshe annaga inta aan farteen waana garanaynaa waana ku daraynaa annaguna soo ma idaan garan deegaanada wacyigelinta ballaaran ay ka sameeyay waxaa ka mid ah Boodaale Quraco Falanfalxo iyo Salay waa Khadar Maxamuud Axmed Khadar Xeefo telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil.